Ah, waa mahadsantahay manager Cismaan aad iyo aad baad u mahadsantahay leader. Magacayga waxaa la yiraahdaa manager Fartuun Maxamed Warsame waxaanan ahay reer UK. Horta aad baad u wada mahadsantihiin kulligiin oo dhan. Managerkana aad buu u mahadsan yahay oo iga halka kan aan ku helay warbixintan maasha Allah. ها hogaamiye ku maqlaynaa ku soco miyuud baa ku saarmay Fortune walaalo yes Raalli ahaada. Like I said, magacayga waxaa la yiraahdaa manager Fartuun Maxamed Warsame waxaana ahay reer UK. maasha Allah Walaalayaal aniga kambanigan waxaan ku soo biiray sanadkii hore 2023 bishii Agost dhammaadkeedii. Sababtan kambanigan ugu soo biirayna waxay ahayd xag caafimaad. Ani waxaan iniga warramayaa qisadayda oo soo koobaya waqti badan ma qaadanayo insha Allah oo soo koobaya. Sheekadaydu way dheer tahay laakiin waa inii soo koobaya iga raalli ahaada. Qisadaydaas oo xag caafimaad ahayd. Ani kambanigan markii intaanu ku soo biirin ka hor waxaan ka ahaa customer oo alaabta ayaan ka haye gadanayay. Alaabta ayaan haye isticmaalayay. Alaabtaas isticmaalaya waxaa ii geeyey xag caafimaad oo sonkor ayaan qabay iyo haye rheumatismo, castrol, blood pressure, thyroid and overweight. Daawooyin aad u fara badan baan qaadanayay oo dhakhtarku i siiyey. Hadday tahay sonkorta waxa dhan ay tahay daawooyin baan qaadanayay. Sidaasay tahayna haddana kuma qanacsanayn oo jirkaygu kuma qanacsanayn oo markasta waxaan tabanayay macnaha aad baan xanuunku iigu sii kordhayay oo daawooyinkuna dhakhtarku ii sii kordhinayay markastaba every time aan tago. Sidaas awgeeda waan ka sii darayay markasta heer markii dambena wuxuu i gaaray irbado la igu dhufto lowyaha la iga dhufto rheumatismka awgiisa. Labada gacmood irbad la iga dhuftay flu extraction la yiraahdo oo ay dhahaan dadka daawooyinka badan qaadanaya cimilada awgeeda. 9 kaniiniya maalintii qaadanayo ama 8 iska dheh 9 waa maalin dhaaf thyroidka maalin dhaaf buu ahaa 6 sonkorta ah 2 subaxii 2 duhurkii 2 habeenkii hal xabo blood pressure-ka ah ama dhiigkarka halka xabo oo castrolka ah oo dufanka dadka jirka isku badan yahay ah hal xabo thyroid ah sidaasay taana overweightna waan ahaa marka daawooyinka kambaniga kan markii aan qaatay anoo banaanka ka taagan aad baan ugu caafimaaday oo daawooyinkii waxaan gaaray heer aan tartiib dhakhtarku uu iga joojiyo markaas awgeedan waxaan go'aan ku gaaray inaan kambani ku soo biiro sida alaabtu raqiis iigu noqoto on customer aan isku bedelo ganacsada camal oo kale sidaas awgeedana alaabtu raqiis 30% discount aan ku helo sidaasaan marka alaabta u sii isticmaalay aan xaaladahayga caafimaadna aan uga sii wada faa'iidaystay marka hore waxaan gadanayay tunay mudinta lagbad customer ahayd intii aana shirkadda ku soo biirin oo alaabtaada isticmaalaysay laakiin intii aana shirkadda ku soo biirin xanuunaad u badan baad lahayd runtii ilaahayna caafimaadka kuu siyaadiyo ma adigoo ka roonaaday oo fiicnaaday ayaad markaa shirkadda ku soo biirtay maya daawada waxaan ku bilaabay inay February ahayd baan jeclahay 2023 February 15 meelahaas inay ahayd baan jeclahay hadaan qaldanayn marka March horta Rabadaankii waqtigii Rabadaanka anoo daawada muddo xoogaa isticmaalaya adiga like 6 weeks anoo isticmaalaya ayaa waxaa dhashay Rabadaankii amse 2 bilood bay ahayd anoo isticmaalaya ayaa Rabadaankii dhashay marka Rabadaanka aan dhashay waxaan xasuustaa waa Rabadaankii iigu horreeyey ebed last 15 years on si fiican u soomo rabadaanadii hore waa iga tegi jiray 20 beri iga tegi jirtay 15 beri markasta waxaan bixin jiray lacag baan bixin jiray sida qof ii soomo maasha Allah okay marka saasan ku xasuustaa waqtiyadaas rabadaankan wuxuu ahaan malaynayaa April inuu ahaa baan malaynayaa haddaan qaldanayn marka ka hor anoo daawada isticmaalaya aan jirkayga waxaan ka dareemay aaminitaan aan is-aamiyey inaan rabadaankii aan soomi karo awalna ka hor intaan rabadaanku dhalan baan lacagta diri jiray sidaas awgeeda baan marka daawadii alaabtii u dareemay inay alaabtu shaqaynayso oo alaabtan good quality tahay teeda labaad sokortu cudurro badan bay leedahay waxyaalihii badan waxaan arkay jirkayga isbedela sida kulayl jirkayga ka bixi jiray fire oo firekii aanan lahayn kulaylkii badnaa xanaaqii badnaa aanan lahayn daalkii badnaa wadnaha i garaacaya aanan lahayn madaxii i dilaamaya aanan lahayn arag ilowgii oo igu batay
oo mararka qaarkood wallahi been nima sheegayo aan baabuurka meelaan dhigantaan garan waayaan iska warwareego oo igu batay aragtida visionka aragtida igu badatay oo macnaha aragtidaydii nuxuus noqotay oo okyaalo la ii qoro marka sonkorta cudurro badan bay leedahay waxyaalo badan bay leedahay sign badan marka signkaas waxaan dareemay inaan isbedel hurdo macaan xanaaqiyo iga yaraaday wadna xanuunkii badnaan lahayn madaxii idilaamahayey oo isoconahayay aan lahayn waxyaalo aad u fara badan saasaan marka alaabtii u sii watay inaan sii isticmaalo ما شاء الله marka وايح markaas go'aansatay markaa inaad kombanigii aad ku soo biirto sababta ugu weynaad ugu soo biirtay ma caafimaadkaaga ahayd mise dhaqaale ayaa doonaysad raadinaysay may caafimaad ba kaygu ahaa caafimaadkayga because okay albaab baa ii furmay caafimaadka aan ka dareemay jirkaygu ka dareemay wax isbedel weyn sidaas awgeeda ما waxaan شاء الله isir okay laabtan way ما kugu شاء qaali markasta ma gedi kartid haddaad discount aad ku helayso why not teeda labaadna wax badan الله oo kale iisii dhimanaa rheumatismka iisii dhimanayd weightka oon iska dhimaa iisii dhimanayd waxyaalo badan baa iisii dhimanaa thyroidka ii dhimanaa marka sidaasaan ugu soo biiray sidii baanan u waday markii dambe heer waxaa aan gaaray dhakhtarku intii daawooyin ah haddaan runta inii sheego soomaali weyney meel kasta joogtaan daawo afkayga aan geliyo waqti ceshaan hadda tukanaya oo weysaa ii dhowrane waxaa iigu dambeysay November 2023 November dhexdeedii Novemberteedii kale hadday dhamaatay 2023 baan wax ka hadlaya hadda daawaaba 2020 adigoo macaan lahaa dhiikar lahaa beer subag lahaa yes waxa yes weeyaan waxa rheumatism lahaa waa ilaa 4 xanuun weeya qiyaastii afartii xanuun hadda wax daawo ma qaadatid lix bay ahaayeen manager lix lixay ahaayeen sonkorta miya kowda hay sonkorta kow kaastroolka laba blood pressureka saddex thyroidka rheumatismka afar shan iyo overweightka iyo overweight iyo miisaanka wax daaf miisaadka waaw waxaa hadda wax dhaafaa daawo ma boqolkiisa cagaa qaadatid ba haba yaraatee hal xabo oo daawo ilaahay baa iga sarreeya afka ma geliyo ما شاء dhakhtarkana wax الله daawo ما iga شاء dhuftay الله lugaha ma ما شاء jirto الله we awla are so lugaha happy winter kasta daawada lugaha la iga dhufan jiray oo الحمد winter time لله waxa الحمد 3 لله months ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله waayahay markaa daawooyinkii kulli waad joojisay muddo intee lag baad wax daawo oo kale aanad qaadan markaa oo daawooyinkaasi waa xanuunada inta badan dadku ay la nool yihiin macaanka oo kale waa xanuunada chronic diseaseska dhiigkarku waa xanuunada chronic disease haddana daawadii ma qaadatid maanta alxamdulilah dhiiggaagu waa control yahay wax waliba control bay ay yihiin maasha allah waa muddo intee lag muddadaas hadda oy tahay ii sheeg ana daawo sorry iigu celi manager su-aashaadii adoo iga raalli ah muddo intee leeg ayaa daawadii aad soo moogan tahay ood ka soo maqan tahay daawadii aad qaadan jirtay macaanka iyo xanuunada guud ee chroniga ah okay November to November waa 20 waa labi 13 hadda ما شاء الله waxaan ku jirnaa December baan ku jirnaa Soomaa December ما baan ku شاء jirnaa الله ما marka شاء الله الحمد adiga لله 14 bilood baan ku sii soconnaa wow amazing runtii waxa yeah weeyaan qaalaha kasta kooba waxaan arkayaa company inuu caafimaadkaagii saameyn ku yeesho waa xanuunadan iminka ma garanaysaad ka hadlayso waa xanuuno lacag ma garanaysaa daawadooda aan lagu heli karin weeyaan ilaahay baa si la bixiya daawadana companiga kugu soo dhibay waana waxaynu walaalaha kale iyagana ma garanaysa alaabtan waa supplementi caafimaadkaaga u fiican kantarooleysa ma aha daawooyinkii dhibaatada lahaa ma garanaysaa wax nafaqa leh tusaale markaad insaliinka qaadanaysa daawada macaanka wax nafaqa kama helaysa nafaqa kama helayo laakiin alaabteena aan isticmaalayno waa fiitamiinaad oo wax nafaqa jirka uu ka helayo oo marnaba aanad ku khasaarin waaya ganacsiga waad kusoo biirtay adigoo caafimaad ahaan ugu soo biiray kadib maxaa dhacay kadib markaan daawadii dhakhtarkii tartiib iiga joojiyo dhakhtarka asaga iga joojiyo ani ma iska joojin daawada asaga iga joojiyo tartiib baaritaan buu igu sameeyey waxaa dareemay hami baan dareemay qofka marka uu jiran yahay hami ma leha oo asagiibaaba tibcaanaba laakiin qofka markuu caafimaad hela ayuu hami helaa marka hami baa igalay oo alaabtaan way shaqaynaysaa familkayga uga faa'iidey habreertay wac abtigay wac adeerkay wac kan wac dariskii waan u sheegay ani arrintii sidaasaan ku bilaabayba markaas waxaan isku bedelay ganacsi gabadhii aan waxaan ku eriyay diwaan galisa walaalo ganacsi ma ka dhigi karaa alaabtan haa waad ka dhigi kartaa sotaan waagi hore kuu sheegay dhahday okay sidii baan ku waday sidii baan marka iga iftiintay ilaa haddana ganacsiga meel dheer baan ka gaaray adigu waad ogtahay minajarad baan hadda ahay anoo kambaniga aan jiro kusoo garay ayaan kusoo galay baan maantana minajarad ahay oon tiim weyn hogaaminaya maasha allah tabaaraka allah maasha allah maasha allah sidaasa marka ay hamigii ku socday saasaan ku socday ganacsigii waad kusoo biirtay
qofna dhaqaale ma diidayo oo dhaqaale wuu baahan yahay caafimaad iyo dhaqaale macnaha caafimaadkii markaad uga faa'iidaysatayba waxays tiri dhaqaalahana maad xaggiisa uga faa'iidaysatid oo ku darsatid nimcada kalena maasha allah tabaaraka allah shaqadii iyo dhaqaalihii baad ku darsatay maanta tiim dhan baad hogaaminaysaa ganacsigaaga ka waran siduu u shaqaynayaa dukaankaaga goormaad manager noqotay maxaad la kulantay bal iyadana walaalihina cusub uga yar waran insha allah kambaniga ganacsiga waxaan bilaabay January last year January baan bilaabay this year January baan bilaabay January markay dhalatay baan bilaabay end of Christmas baan bilaabay dhamaadka Christmaska sanadka hore markaas ayaan waxaan bilaabay inaan alaabti gadgado sidii aan u waday waa kan hadda maasha Allah bum hadda halkaan maraya managerna waxaan noqday bishii September hadda maxaan ku jirnaa December baan ku jirnaa November hadda hal bil baan manager ahaa iyo bisha tan inta hadda bishaan ku socoto dadmin waxa waaye baan October dhamaadkeedii baan manager noqday October baan noqotay hadda bishan aan waxay ku dhaatay adigoo manager ah kawana ganacsigaagu markuu manager soo gaadhay iyo intii hore manager aanu ahayn bil walba dhaqaalaad samayn jirtay adigoo productigana dhaqaale ka samaynay because alaabta walaabaad jeceshahay waxaad jeceshahay inaad aad bay kugu fududahay oo wixii natiijaad ka haysaa marka waana sababta la dhihi karo inaad guulaha waaweyn ee degdegaad ka gaadhay adigoo bishan January kusoo beeray ganacsiga inaad haddana markiibaad manager noqoto oo company dhanaa manager ka noqoto oo tiimamkeena maanta tiimka ugu ballaaran ee UK aad hogaamiye u tahay waxa weeye waxa keenay waa passionka ama jacaylka aad productiga u qabto wey because markhaati adigii baa markhaati hadlaya markhaati kale uma baanid ma garanaysaa way tusay taabsi waxaagu maasha allah tabaaraka allah marka bal markii ganacsigaagu aad soo guda gashay intii hore dhaqaale dheeri aad ka samaynaysay maasha allah daraad maraynu wada hadlaynay mise daraatii ka horreysay baynu ahayd waxaynu isbarbardhigaynay dhaqaalihii aad samaysay bishii horeen managerka aanad ahayn iyo bishan bal imaaji karee maxaad garanaysaa muhiimadda inaad manager ka noqotay dhaqaale ahaan kumbaniga bal ka waran iyada walaalo ما شاء الله تبارك الله دقالة أنا كوها مين بهرت ما كوها مين هل مرة جوك وحك في عن كوسو ده هاي كوها مين رمبا في عنه ما شاء الله بيرفي ما شاء الله تبارك الله وحنا سلا هذه ما شاء الله هاي كان ولا ما شاء الله وسقرا ولا شيء عافيمات كيجا إلهي وسياديو دقالة يكون بيني إن معدا كيلا سنة إلهي وسياديو ما شاء الله هل سنة يوحير بكوشرتا عادينا هل سنة يكذب سيدنا ربنا إن نلش هذه يسكا ونكسر نقطة سود هذا كسر ولا لا markii bisha ay managerka aan noqday waa fiirsho waa istaagay waa fiirsho waa bangiga fiirsho waa kacay waa fiirsho because waxaan islahaa adiga $500 $600 ba meelahaas ku soo dhacaysa laakiin waxaa soo dhacday $1,500 waxba inagama qarsanay maasha Allah dhahanay $1,500 hal mar jug soo dhacday maasha Allah bisha tanna وهمين كده توال إسلا فيرين واديها وإسلا فيرين وادوكتهاي أكونك وإسلا قلني باونهان مركان حسابي كون إيو ضدوب قلمي أهد كون يلح بوق دكون ضدوب قلمي حسبي هذا هذه لبكون كل $2 لبكون $1 ولي بحال وطن كليا وطن هذه كلام هل وطن يس هل وطن ويوكي كليا ما شاء الله تبارك الله سومالي كم تشرتو يوروب تكلا كم تشران وضمادي كلا كم تشران وضمادي كلا كدر لبكو صدق كم ويجارس أما أفر كونوا بان ويجارسه يس ودمرك هذا كدر واو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هي علابتي عن قضين كم تشرت علابتي عن قضين جروكو قضي كم تشرت تاسنا واو علابتي عن قضي إيه أتسي بسير فايدة دي وجونية واحد عكس سؤال عادي ده وحويان أكون ككمباني جا كوسو قشة وحلقة دونتنا شرية طبعا كبيشة قادني سوي همبلي ما شاء الله maanta dad Soomaaliyeed oo bisha dhan $700 ku shaqeeya baa caawa ku dhageysanaya fariinta ugu diraysaa maxay tahay walaalayaal horta afar boqol ku shaqeeya weligoodna intaa raba inay ku shaqeeyaan qaarkood oo hami kale ma garanaysaay maxaad dhihi kartaa si dadkaas maskaxdoodu isbedel u gasho oo fursadan aad heshay uga faa'iidaystaan ma waxaad dhihi kartaa walaalayaalow fursadan waa mid aniga iyo dadka ila midka uun loogu talagalay oo aqoon kaaga xidhan oo shuruudo badan kaaga xidhan kama faa'iidaysan karta halkaaga iska joogo $700 iska bislayso mise you can do it join now caawa go'aan qaado dib isku dhigin baad leedahay soo dhow leader hogaamiye soo dhow والله بالله بيني ما شيء هاي ولا ليال هدي فرتون بسمايسا يمكن واد سمين كرتان فرتون هدي سمايساي يا هدي سمايسا فرتون اسبتال ان كبخي جيرين سي سوسعت انفورميشن waa laga yaqaan isbitaalada waa laga yaqaan beenini meesha caan banka aha hadaan sameeyay idinkan waad samayn kartaan ma fahanteen Soomaa 300
300 iyo adiga hadda kasoo qaad tusaale ahaan miiska haddii lagu saaro $300 iyo 3,000 haddii miiska lagu saaro keebaad qaadan lahaydeen idinka hadda isweydiiye naftaada weydii weydii 3,000 haddii waxay walaashay su'aal bayna weydiisay haddii miiska lagu saaro $3,000 iyo $300 keebaad qaadan lahayd yes lacagta keebaad badan baan qaadan qaadan lahaa yes marka the choices yo waa kas choice adaa marka samayso waad samayso waaba already waad ogtahayba maxaa marka 300 3,000 adoo heli kartid bishii heli kartid oo dollar oo caruurtaada iskuulka ka baxsan karto oo gurigaaga ijaarkiisa kafaayo oo biilkaaga kafaayo oo familkaaga kafaayo maxaa 300 ku fale ya masha Allah welibana fortunay aan ugu darno walaalaheena inay shaqadoodii iyo 300 xataa laftooda laga qaadanayna halkii ay u taalo iska wadanayaan yes taasna way wadanayaan yes why not ha labadooda waa isku wadanaysaa aniga maasha Allah hooyaan ahay 5 caruura baan haystaa isku maxaa la dhahaa foreverna waa ka shaqeeyaa marka caruurtaydana weliba ma shaqaal baa yaryar qaarna teenage-kana waa iska garanaysaan shaqadoodu way badan tahay way culus tahay arrimahoodu way culus yihiin marka haddaan anigu aan sameeyey oo shaqadii tanna hayo gurigiina hayo ilmihiidan ka daba ordahayo maxaa la dhahaa foreverna aan samaynayo wallaahi been iniima sheegaaye gacantiinaad shuminaysaan because you know why dadka aad la diilgaraynaysid waa Soomaali horta luuqadaadii hooyo weeye waa kow waa midda labaade waqti alla waqti adoo bijaamadaada qabta adoo sariirtaada saar adoo gurigaaga xaaqanaysa adoo suugadaada lacanaysa ayaa shaqadiina wadaysaa cid ku dhahaysa ma jirto maxaad maanta dukaankaaga u furi weyday cid ku dhahaysa ma jirto maxaa dhacay u gadi weyda alaabta tan cid ku dhahaysa ma jirto ikhaya haddaa rabtidna albaabada iskugu dhufanaysa dukaanka waad telefoonkaad dansanaysa waa seexanaysa haddaa rabtidna waad daaranaysa waa shaqaysanaysaa the choice is yours waa xorriyo marka shaqadaadaad aadaysaa shaqadaada markaad ka timaadid baad ka shaqaysanaysaa dukaankaagiina that's it ما شاء الله marka labadaadi waa isku wadanaysaa yaa ku diiday labadaada isku wadanaysaa walaalayaal waa xorriyad aad u fiican haatan been iniima sheegay hadaayato manajer cismaan waataan ku lahaa waraaq baa ii soo dhacday waraaqdii waan aqriyay xoogaa si fiican waa u fahmi waay ma xasuusataa ها waraaqdii haddaan si fiican usii aqriyay markaan shaahi cabay waan si fiican usii aqriyay indhaha ii furmeene waxaa ku qoran baabuurkiibaad qarka u saaran tahay baabuurkiibaad qarka u saaran tahay ka faa'iidayso يا ما شاء الله نانو ما شاء الله دقيقة يكور أنا برنامجك بلاين بيسو وعدنا بيسي أنا برنامجك ديارنتيسا ما شاء الله مركز تر ورقة بيس أنك صوب إحنا برنامجك بان مركز أنا أخرينا هاي نوض الشيء هذا ينوض بشارة قاري جيب قرك وصارن تاي بيشان هذا يبيش صوص عتا وعدي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب أعطونا ولا له runtii wallahi farxadayda caawa lama qiyaasi karo maanta waxa weeye you make me day maaha dhaqaale keeda kumbani ka samaysay laakiin inaad ma garanaysa caafimaadka iyo kumbanigaad ku bedeshay waayo dhaqaalaha waxa ka qaalisan caafimaadka ka qaalisan ma garanaysaa inuu kumbanigan caafimaadkaaga bedelay alxamdulilah baan leeyahay I'm so happy aad baan horta ugu faraxsanahay aad naftaada keliya anad wax la jeclaynay walaaleyni kala la jeclaatayna taasi waxay muujinaysaa inaad qof wanaagsan tahay qalbi wanaagsan oo nadiif ah oo daahira inaad tahay bay muujinaysaa inaad welibana dhaqaale ka samaysana waxay taasina u tahay walaaleyna kale tusaale cad oo iyaguna inay samayn karaan maanta bulshadeena Soomaaliyeed dad wadankii jooga baa u badan wadankeeni waad ogtahay bilaa camal bay dadku badan yihiin wax tayale ma haystaan daawooyin dhacay baa loo keenaa way kadeedan yihiin marka inaad ummadeena aan uga faa'iideyno inaguna dhaqaale samayno bal ka waran adiga waxa weyn ummadaadii caawinaya caawinta ummadaadi aad caawinaysa haddana dhaqaale ku samaynaya ka waran oo noloshaadina ku bedelaya ilaahay baa hadafkaadii kuu soo dhex marinaya guusha dadka kale kuu soo dhex marinaya bal ka waran maaha keliga maanta Soomaali badan oo guulaysatay baa jirta tusaale haddaynu soo qaadano daabshiil nin baa iskale wuu guulaysto milyaneer weeyaan hormuud nin baa iskale waa milyaneer wey keligii baa guulaystay xataa eelkiisa qaybo ka mid ah doonayaan ma garateen marka waxa weeyaan nacsigan laakiin aniga Soomaaliya alxamdulilah maanta noloshaydan ku bedelay waxaan anigu noloshayda kaliya inaan bedelay macna ma samaynayso laakiin ilaahay wuxuu sabab ka dhigay inay fortuun caafimaadkayga ku bedeshay sidoo kale oo wax laga yaaba haddaan aanu maanta soo geli lahayn kombanigan inaanay fortuuna jaaniska ina heli leeda allahu aclam ilaahay baa og waxa sahra waa dhegaysanayseen maasha allah sahra waa qofkii ugu horreeyey ee markii aan kombanigan bilaabay tiimkayga number 1 weeyaan 6 sano kadib qofkii aan wada bilayno ee maanta warbixinta ku siinaya waxa halka warbixinta na siiyey sidoo kale walaashay fortuun oo ganacsiga hadda gebiba waxa weeyaan January waad garan kartaa waa wax yar January la hadda wax yar sanad gudii guulaheegii nooga sheekeynaysa 1 year si nolosha isku bedeshay adiga haddaba su'aashu waa adiga walaalo this is personal tani waa shakhsiyan adiga ayay ku qusaysaa
adiga ma leedahay go-aan ma leedahay rabitaankaas aniga igu jira ee walaalin lagago jira hadday yees tahay ledas jan insha allahu tacaala fartuuna waynu mahad celinaynaa cabdicasiis baan rabaa inaan ku soo xidho insha allahu tacaala barnaamijka cabdicasiis may maqlaysaa walaalo حمد في فسيحة كوم مغليا aad baad u mahadsan tahay hogaamiye cabdicasiis cabdicasiis waa walaalaha ardaydii soomaaliyeed